waa mar kale barnaamijkeeni Dulmar marka Norway goormay arintii markaa isbedeshay halkee ka Norway iska bedeshay arinta taas waa taariikh fiican oo ku saabsan sida looga hortagay shirkadahaasi qowleysatada ah walina barnaamijkii Dulmar bay bartanka ka jirnaa daawada qiimaha leh aqoonyahan Cabdisalaan Xaaji Ismaaciil ayaan uga casuuban arrimaha badda aad uga hadlaysta markaana focal waxa loo yaqaan afka qalaadku ah yani nin maartay aad uga hadla arrimaha badda mar walba oo ku maartay ka kan in arinta badda Soomaaliya la dhiciyo oo runtiina loo ogolaanin oo inay cid kale ay qowleysato ama ay dhacdo marka wali barnaamijka bartanka ka jirnaa marka waxaan rabaa Cabdisalaan arinta ku saabsan Norway arinta Norway iyo some oil waxa la leeyahay siyaasiyiin Soomaaliyeed hadda qarkood xil haya ayaa deal galay oo ayagina soo jiitay waxana uu ogolaaday ayna ka mid tahay shirkadan some oil horta some oil inteena u noqon Norway maanta halkay taagantay Norway waxay taagantahay Soma Oil markii la dhisay Soma Oil hore waxaan u sheegay in badan sheegay inay leeyihiin madaxweynaha Mareykanka markaa jiray ra'iisul wasaaraha Ingiriiska markaa jiray ruushka ragga ninka ugu maal badan oo maalgelinaya oo Putin la Obama iyo David Cameron ya oo ninkii mataqaana maalgelinaya waa nin ruush ah oo mataqaana billionaire oo mataqaana gaaska Mareykanka in Russia laga qodo ka ugu badan sheerka ugu weyn ninka leh ninka la weeyaan mataqaana waa ninka iskale kana waa ruushka Ingiriiska Mareykanka mataqaana wana madaxdii waayo kana ruush madaxweynuhu la jiraa oo mataqaana madaxweynaha baa naftiisa ay xiriir ay wanaagsan leeyihiin waliba markii uu ka dhacay 2014 markii uu dhacay mataqaana gobol kamida mataqaana Ukraine ay ka goysay ruushku uu qabsanayay oo qalalaas ka dhacay Mareykanka iyo Ingiriisku waxay ku soo rogeen cunaqabateyn mataqaana ruushka maadaama uu dal qabsaday gobol uu qabsaday gacan karam uu qabsaday cunaqabateyn baa lagu soo riday waxaan Google gareeyay liiska cunaqabateynta labada dal ku soo reeyeen labadaba ninkii kuma jiro sababtoo ninkan dayo ku shaqeynaya waana xaqiiq in maal qabeenadii ugu badnaay Raashiyaanka lagu soo rogay lagu soo rogay cunaqabateyn laakiin ninka Soomaaliya arinta kulku talaha kuma jirin ninka ruushka maal galiyo Soma Oil gasna kuma jirin labadii liiski baan hayaa labadii saas oo mataqaana u daabacay labadiiba kuma jiro sababta meesha interest baa jira waliba ninkaas waa xagga ruushkana waa ka dhisan yahay oo madaxweynihii baa maartay waa wax dhan ee dhaqaalaha wadanka ragga ugu sareeyay ahayo weeyaan marka waxay Norway aan u soo laabano sababta u soo gashay Norway maadaama wixii laga saaray oo ay aragtay qaanuun oo dhalinyaradaasi Soomaalida iyo adduunka iyo shirkadaha indhaha u furtay madaxdana ay soo gashay waxa la qabtay London Conference 1 iyo London Conference 2 iyo London Conference 3 oo Soomaalida loo qabtay si khayraadkeeda loo boobo Norway kuwan ka mid noqotay marka kuwan bay ka mid noqotay gruubka beelahan bay soo gashay marka London waxa la qabtay 2012 kii bishii February 23 baa London lagu qabtay waxa qabtay David Cameron Sheikh Sharif si loo eriyo baa la doonay istiraatiiji Sheikh Sharifna lagu eriyo maadaama xilliga Sheikh Sharif mumarad understanding mataqaana la saxay la soo celiyay waxay dhinacooda soo arkayeen wax ka qaban waayay uu yahay waayo Sheikh Sharif baarlamaanka 215 Cabdullaahi Yusuf ka tagay iyo 275 uu isaga la yiri keenso si mataqaana doorashada loogu barkay inuu noqdo la doonayay si uu xamar kacdoonkii lagu sameeyay Tobank dadku xasuuq uu sameeyay si loo arko lahaado waa ninkii maartay maxaakiimta madaxda ahaa oo Soomaalidu taqaanay amiirul muslimiinka marbar loogu yeer jiray Sheikh Sharif runtii waa muddo magaca in loogu yeero sababtoo ah waxa weeye waa wadaad mataqaana dadaal Soomaalinimo waxa ay haysay marka waxa la yiri Sheikh Sharif uu arinta ka qaban waayay baba taqaana la yiri aynu cid kale kansano saas London 1 lagu tagay inta looga maray London 2 baa tagay kaasi 13 kii buu ahaa wuxuu 13 kii baa hadana la tagay May 7 marka la siiyay waa marka Soma Oil and Gas la soo dhisaayo waxa la soo dhisay la sharciyay April 26 2013 kii May 7 waa meeqash kooyta casho labadii kun iyo 13 waa wax sanadka sanad ma kooyta cashan ku yiri waxa April 26 2013 kii baa iyada register London laga dhigay oo mataqaana qolada laga registeray waa April 26 7 May oo bisha ku xigtana shirki Soomaalidu oo dhan oo 44 dal isugu imaanayeen baa socda innakuna waa maamuradda aynu garanayno mayno markii April 26 la sameeyay mataqaana madaxweynaha markaa jira Xasan Sheikh markaa meeshuu joogay oo markaa inta la sharciyeynayo bahasha la soo sharciyeynayo waxa ka horeeyay April 21 waa maalintii boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth
Queen Elizabeth loo geeyey looma bageeyay dadka Afrikaanka si maartay loo hanto way shaki baa laga qabaa nin xamar ka soo jeeda xamarna waa maartay dhibaatooyin badan baa la gaarsiiyey shacabka xamar doon ma ay faragelin shisheeye waxa kan way gubteen shisheeye gubay mataqaana gobolada kale waa ka duwan Soomaaliya madaxii waa maskiina waa caasimadii dhibka oo dhan caasimadda ayuu ku dhacayaa marka ay saa ahayd ay ka baqayeen boqorday u geeyeen kagama yaharin 2 maalmood kadib 23 iyo 24 isla abrishiisaas waxaa Ireland ka dhacay bas Ireland waxaa ka dhacay meesha la yiraahdo Ireland shirki G7ka Ruushku ma jira G7ka G9 ku jira G7ka iyo Shiinuhu kuma jiraan G7ka waa wasiranka kaliya iyo Jabaanka G7ka shirka dhacay waa loo yeeray markii la yeeray dawladaha Mareykan waxa wata Ingiriis oo iyagu waxaan doonay xasan inuu waxaan ay ogolaysiiyaan wali lama gaarin wuxuu yahayna lama yaqaano marka la sameeyay wali xasan waa jooga mataqaanaa baa maartay marka waxa diiday shirkii inuu ka qayb galo nimanka la yiraahdo Ingiriis Faransiiska Jarmalka bas oo jeedo yiraahdeen Soomaali de wad base Soomaali ku imaan kartaa Soomaali aan la aqoonsanin oo dalba bursan oo dagaal ka dhacay oo ciidamada ajnabi sidaabay mataqaanaa darkariyada irka xas shaqo ka hadlay BBC oo Voice America oo shirkana ka qayb galaya waxa la shirkii naga raali loo baadhiyay arintaas asaas loo diiday marka April 24 May baa bilaabtay oo 7kii baa la dhigay shirkii baa bilaabmay isla markaa Abrisha aan ilaahay waxa la magacaabay ninka UN-ka waa lagu shaqaysanaya tool weeye ninka UN-ka mataqaana oo Ingiriis baa maartay ay soo jeediyeen kii ka horeeyay Michael Keating wuxuu ahaa kadib weeye kii ka horeeyay baa markaana la soo magacaabay meesha shirku jooga markaa isagu oo dadka mataqaana Ingiriiska waxaan u qaabilsan buu ahaa UN-kida Ban Ki-moon wuxuu ahaa nin aan honest ahayn ninkii markiiba soo magacaabay social media soo gashay warqadu ku magacaabay oo mataqaana uu ku magacaabay muxuu ugu magacaabaya maartay shirki baa socda waxa la Soomaaliya bil baan cuna qabateyntii idinka qaadnay bil hub yar oo bastoolada iyo waxyaabo Kenya Ethiopia ka soo iibsada waa cuna qabateynta ma laga qaado khayraadkeedii baa socotay bil baa laga qaaday waxa soo iibsada la yiri waxa mataqaana ninkaas baa mataqaana la magacaabay shirkadii ninkii Hindiga soo dhisay baa isla markiiba habeenkii laga bedelay oo website-ka lagu soo qoray David Cameron ninkii xisbiga Conservative kala wareegay Lord Howard buu mataqaana islaameenkii ku magacaabay kii mataqaana soo dhisay mataqaana Hindiga Shabalqana waxa la yiraahdo ku xigeen noqo founder ku xigeen baa tahay founderkiina adaa ku magacaabnaanay ilaa ku saxani laakiin chairmanka waxa noqonaya ninka mataqaana Lord Howard waaye arintaas nimanka la yiraahdo some oil and gas seebay u soo galeen marka ganacsatada iyo madaxda Soomaalida seebuu madaxweynaha Soomaaliya lagu yeeshay sidoo kalena xubnahan kale ay hadeerto leeyahay lug bay ku leeyihiin maxaad ka ogtay waxa weeye maadaama madaxweynaha ilaa inta la wada ilaa boqoradii shirkan halkan waxa soo dhan inta uu meesha ku sibnaa 7 bahashi la dhisay oo wixii la kala qaybiyay oo mataqaana dadkii madaxda waxa la magacaabay oo inta la magacaabay Obama uu soo magacaabi doono inay saaxiibiina Columbia University ay ka soo wada baxeen oo soo magacaaban jiro oo laga dhigayo CEO-ga laga dhigayo Ingiriisku waa Germankii iyo ku xigeenkii CEO-guna waa Mareykanka financing cranika lacagta bixinaya waa Russianka wiilkiisa ayu Alexander Martey Dijanov buu ka dhigay oo wiilkiisa oo Mareykanka iyo Ingiriiska labada wax ku barto loo yara buu boorka ku soo darsaday marka maynaan ogeyn inay share ku leeyeen bahashan baa marka halkan timi waa May 7 marka ilaa wuxuu baa la maqlayaa laakiin sax ma dhicin 13kii إنك سدحتونكي إنك من نقانا واحد موسى صباحين ساعد برايم مينستر ساعد إنه ماشي تجوا الله غيري إلا أنت ومتقنا برايم مينستر الله مقعبه السجال بلاد أنا ملاني إني تعمل كويت السجال بلاد أنا راهو ملها السجال بلاد بس سبتمبر لما كذا لما قعبي تعرف كي دي بدنا مو آذن وحول بوالله قرني سفرنا ما آذهين وفود الجنوبية ما مقابلة هين شركة لون اللواء هذا والله غير حوال ما هين مركب وحاجة ذو البرلمان كحبناها قدك السوتشي ذا ويلاحظ أنت إنك حلك يسمو قداني وين وبحا وحيد مركب قلنا أي سمية مش برلمان كي بيجي ذا وحفر عن بيهايد أنت قبيل كل شيء له خوفك قبيل كيسونو له شغالة دي ما دم قدان محيا هاي مارت أرين أد وناس بالطريق وراك بيرجع السميان ومحل بندق كذا ما أنت عساك كيسو بيهاين ماي markii shirka laga soo 22 bay mataqaana motion baarlamaanka influence gareeyeen baarlamaanka mataqaana motion loo ballamiyay 22 May meeqa u dhaxay shirki markii laga soo noqday waay bay mataqaana motion in laga keeno saacid oo la eriyo waxaana lagu erayaa
waxaan dhacay laba socdin baa lagu eriya wax nin nadiif oo kale rabu ninkaasi ahaa oo haba yaratay in wacyi yeelka maanta ay jirin marka lacag some oil marka inagu celi some oil yaa marka wali mayna soo gaarin may baynu maraynaa may 22 ila 7kii asaaska kan 22 baa markaana baarlamaanka la saacid hal eriyo lacag qadar laga keenay oo xildhibaan siyaasi qadari ah airport uga soo qaday madaxtooyada keenay TV-yadii baa wuxuu sheegay qadarigaas inuu lacag keenay baarlamaanka in loo qaybiyay baarlamaankiina mataqaana halka lagu seexiyay oo la yiri saacid ha eriyana waxa la doonay dawladda saacid markii hore waxa lagu qabsay inay 10 wasiir noqdaan afar beel iyo bar baa la dhihi jiray marka shan laga dhigo laba loo siiyo si sharciga soo socdo loo ansixiyo xasan inuu mataqaana waxaan ku jira waxaas oo dhan ma muujinaya dawladii buu cadiyadiyo wuxuu yiri 12 wasiir prime ministerka wax walba uu ka qariyay agos baa bilaabatay agos 6deedii baa nimankii xamar ay ka soo degeen oo iyagoo mataqaana sharciga soo diyaarsaday waa loo saxeexay wasiirkii khayraadka cabdirasaaq baa u saxeexay saacido prime ministerkiina waa taagan yahay markii loo saxeexay oo mataqaana loo saxeexay waa agos 6deedii some oil in loo saxeexo ilaa 100,000 oo square aan iraahdo 12 iyo 6 kismaayo iyo 6 galmudug ah oo ceel oo midiiba 5,000 oo square mile tahay baa maalinta loo saxeexay waxa ay ka helaan iyaga iska lahaa dawladdu sheerku ma lahayn waxba kuma lahayn wax aynu ku lahayn ma jirto kismaayo waxa loo cadaadinaya doorashooyinkii hore tan loo wada galmudug waxa inta loo duminayay inay dhisanto inay heshiiyaan inta loo burburinaya labada gobol waxa shacabkoodu u baaba'ay oo ay u dhimanayaan waa 6da ceel kismaayo duleedkeeda iyo 6da ceel ee martaqaana galmudug duleedkeeda abadeeda ah baa mataqaana ay u baaba'ayaan marka Soomaal markii la saxeexay bil kadib markiiba waxay ku dhawaaqeen inay wax sameynayaan website-koodii bay mataqaana ku soo qoreen bil kadib bay mataqaana waxay yiraahdeen waxa kan waa ma oo saxdeen ratification hala sameeyo ratification in hadda waa la qabsan karaa sidii mumaadaranka loo soo celiyay oo isagoo ratification gaarin baa anaka ratification loo sameeyo October 7 waxay ahayd August 7 balas 6 October 7 waa 2 bilood labada bilood gudaheed baa waxa loo sameeyay ratification kiiba waxa sameeyay 10kii wasiir oo ogolaaday oo taxaq bay leeyahay iyaka la horgeeyay sharciga baarlamaanka ratification ogolaanshahana waxa iska lahaa baarlamaanka ay ratification dawladdu saxay leedahay ratification baarlamaanka iska lahaa waa khayraadka dalka weeye dan marka halkaas waxa ka bilaabatay buuqiga ka bilaabmay wixii baa la arkay wiskooy on cid waliba waa maartay ay mataqaana ay soo taagtay markaas la yiri saacid hal eriyo waxa lagu eriyaa saacid waxa lagu eriyaa wax xogagaal markii dambe ilaa waxba ogaaday waa tii awal reer gadana ay maartay May 12 isla sanadkaas ay yiraahdeen mataqaana mooshinka ka keeneen markaas la yiri la kala daadiyay saxiix markuu dhacay marka hal eriyo horta inta la eriin waxa loo yeeray xasan sheekh baa yiri wuxuu yiri dawlad 25 ah oo 4.5 soo dhigay hada mid 5 oo aan 4.2 ku jirin baa hada oo laba dhisan moogtahay qorshahan in lagu shaqeystaa la doonayay oo mataqaana 10 wasiir uu magacaabay moogtahay saacid waxa la 25 soo dhig saacid markii uu xasan dawladda kordhi oo waxa dawladda kordhi saacid markii uu dawladda keenay oo caynkan baa la iscas waayo nimankan xalana jooga ee ma Soomaa ooyan leebaa waxan wata qorshahan dawladdeenu waa saxiix u bay leedahay iscasil baa oo maxay isku casilaa ma baa la iscasil oo maxay isku casilaa wax markii noqotay baarlamaankii baa loo gudbiyay oo lacagtii qadar baa wali taala baarlamaanka lacag loo qaybiyay waxa la mataqaana saacid hal leeriyo waa lagu heesay saacid in leeriyo baarlamaankiina waa loo diiday inuu hortago jariimada ninka laga galay oo qaranka Soomaaliya laga galay waxa waaye baarlamaanka inuu is hortaago oo isdifaaco war maxaa la weeraya intana joog intaasaan qabto wax eedaan leeyahay ma jirtee maxaad weeraysaa way waxa la yiri waxa laga baqay hadii uu baarlamaanka hortago Soomaa oo waxaan yiraahdo war waxa kan baa saxeexay waxa kan maartay hadun baan ogaaday awalna maanan tagin wax mushkiladu waa halka kan idinkana ma anigana ma intaas laga baqay marka saaciyuusan tagin baa la yiri sir buu hayay markaa sirtaas intaas uu ogaa ala waayahay waa some oil yaale yaa iskale marka laga yimaado waad soo sheegtay taariikhdooda say ku soo bilaabatay qoladii Kilimanjaro ee Canada wiilasha ku ogaadeen ku kala kiciyeen markii hore waatay fashiliyeen dib dawladihii caalamka hore ku soo biiray labada nin ee nin Ingiriiska iyo nin Mareykanka yahay garanay yaa inaga Soomaali ahaan yaa hebel oran karaa dama inagu dad waxaan ahay inagu scholars ma nihin inagu dad siyaasiyiin waxaan u hadlanaa waa danta qaranka Soomaaliyeed inaynu ninaba qarino ama ninaba yaani aynu uga hamrano marka ay timaado dalnimadu ma yaa lagu og yahay oo lagu yaqaana oo runtii xogteeda la hayaa oo leh inkastoo dad badan ay og yihiin
Soma Oil sida u dhantay 100% waa private waxaa leh saddexdaa ninka maalgeliya ruushka wuxuu leeyahay 37.6% boqolkiiba 37 dhibic 37 waa ninka ugu sheer badan ninkaasaa sheerka ugu weyn iska leh ninkaasaana maalgelinaya wuxuu yidhi wiilkayga boorkaa ku jiro anugu lacagta inuu igu imaada laakiin idinka siyaasaddii baa laydinku ogyahay obama wuxuu ka mas-uulahaa amisoonka iyo OAU-da IGAD Soomaaliya inuu cunaqabateeyo Mareykanku barashar ka saaro dhinaca siyaasadda Ingiriiskuna xagga teknikada inuu London 1 qabto inuu London 2 qabto inuu London 3 qabto inuu Soma Oil inuu soo dhiso inuu Soma Oil organize gareeyo inuu saxiix fuliyo Ingiriiskuna teknikada leh ayuu madax ka ahaa siyaasadana ilaalinta kana ahaa Ruushkuna maaliyadda waa triangle trade waa saddex xafle triangle trade-kii Bermuda ma taqaana angle loo bixiyay oo kale ayaa Soomaaliya saas ama taqaana ugu dhacay marka nimankii maadaama ay siyaasiyiin yihiin iyaga waxna ma qaban karaan ka barigoodina fresh oo cusub yahay waxay sameeyeen waxay ku soo direen rag bay yiraahdeen war sharar qaata waxaa ka mid ah ninkii prime ministerka ma taqaana xilka kala wareegay hore conservative kala wareegay waxaa la siiyey sheer yar baa la siiyey sheer aad u yar baa la siiyey ما برنامج ما موسيقى لكن حزبي أو كسرف كدومي كها لورد هاور مركو وكب حينها كاميرون لورد بكرده أو كورد سابق كسوم قاعد لورد هاور سا كرده مقطع لورد هاور شهر يربالسي دكي روش بريكن كا أوباما العسكر السعودي سيو قال قدينا شهر يربالسي لبعض من شهر يربالسي 7% something like 2% بالكلاسي لبعض الشهر كاسالسي مركوش لكن دو بليون الشهر كاس marka la eego gaaska waxa la qaybsanayo waa gaaska Soomaaliya ee Soma Oil lacag ma haysato Soomaaliya lacag ma haysato 200 oo ku deeqay oo from scratch lagu bilaabay oo ma taqaana shaqada ay ku galaan kaliya ma taqaana ruushka bixiyay laba jeer baa la baaray gobolkan Kismaayo ee la isku haystay ee doorashada dibka loogu geysanayana waxa baaray Seabird oo Norwegian ah 15 milyan baa la siiyay Soma Oil baa siisay qaanad waxay ka siisay account-keeda marka galmudug la soo gaarana waxa baartay Spectrum baa baartay iyadana 15 milyan baa ma taqaana la siiyay iyadana Soma Oil ba qarsoodi ma labada Soma Oil baa baastay dubkantii mar dambe oo aan hadlay oo barashada badan ay ogaadeen bay ma taqaana yiraahdeen dokumenti waa kan dawladda haysata laakiin anagu heshiiskii baa ma taqaana leenahay yaa Soomaaliya ku jira Soma Oil markii ay ma taqaana la sameeyay ma taqaana October markii la eriyay ra'iisul wasaaraha la eriyay markii ma taqaana ra'iisul wasaare cusub la soo magacaabay oo baashna ratification loo sameeyay waxa la eriyaan ku soo daraa waxa lagu soo daray Khayre oo Norwegian u shaqeeya Khayre oo qoyroqdan qaxootiga CNRC la yiraahdo kana in qaxootiga xasiya NGO-ga oo markaa East Africa madaxu ahaa baa lagu soo daray meesha tan waxa maartay aan u fasiray waxaan maqlay Xasan Cali Khayre war ra'iisul wasaaraha deerto waxa ku soo daray Xasan Sheikh baa ku soo daray istiraatiijiyada socotay waxay ahayd beelaha xamar dega ee ku sugan si ay bahashan ugu banaan bixin qaar in xamar laga saaro dadka gobolka banaadir in waa istiraatiijiyad qoran oo degan oo ma taqaana galmudug dhigeeda saa u daadanaya hiiraan meesha la yiraahdo beledweyne xagga lagu xiray isolator baa laga dhigay waxa way artsaba laga maamulay maadaama wiil yar artsaba waa la gudoomiyay marka waxa la yiri qolabada qolo hadhowto waa qolihii ma taqaana waxan aad abaabuladan saray ugu jiray marka labada qol hadii la khaarijiyo daynile iyo warriigle daynina waxa ka socdaa nin Xasan Khayre la yiraahdo la keeno oo la yiraahdo 1% Xasan Sheekhna waa madaxweyne waa reer warriigle marka xamar reer warriigle iyo reer daynile hadii labada nin ay qanciyaan oo yiraahdaan annaka wax kule ay soo jeestaan galmudug iyo hiiraana la yiraahdo hal laga saaro beelaha kalena la yiri maamul goboleedka dhista oo xamarba ka jees xamar waxa ka soo doonaysaanba war maamul goboleedka dhista la yiri oo istiraatiijiyadaas halista loo sameeyay baa martaqaana waxa dhacay marka arinta dhacday waxa waaye Khayre markii lagu soo diray markii Xasan Sheekh wuxuu bilaabay inuu lobin u sameeyo 2015 inuu IGAD secretary generalka IGAD inuu ka dhigo artisabu la tagay uu kaxeeyay candidate uga dhigo inuu soo sharaxo macnaha maxbuub baa joogay termkii maxbuud baa dhamaaday markii maxbuud termkiisa dhamaaday Xasan wuxuu keenay Khayr uu keenay laakiin most probably Soma Oil baa wadatay uu ka dhaadhiciyay mataqaana nimankan Ingiriiska iyo Mareykanka ka dhaadhiciyay in Khayre markaa IGAD hadii IGAD
وخير مدح كيهاي سوما أويل شير هولدر يهاي وحاول ده وكوجمينيا والسيف لبا أفله حمرنا ده دتك جوجي ولينا يا استراتيجي لوgu laayo lagu bahdilo xamar oo sida hadda wadooyinka uga xidhan yihiin oo kale baa lagu sameeynaya markii labadii qolo u tagay waxay yiraahdeen khayre iyo Soma Oil waxa ku socda international monitoring group UN monitoring group baa wadata hadda oo wati kees maamul xumo iyo laaluush ay bixiyeen lacag mataqaana ay bixiyeen مليون يبربي واحد وحوي ما بهايم وتا بارس أساس سعته وحيدي دبقلك عنقبتينها الصومالية إريتري بخير هاي ستا